kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification kana furo siday ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cashirkeenu maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa waa wadasheekaysi ku saabsan favorite subjects maadooyinka la xiiseeyo ama maadooyinka qofka xiiseeyo favorite waa xiiseen subjectsna waa maadooyin waa niyo Khalid Cabdi la soco wadasheekaysiga oo dhameystiran ma u baahnayd barashada luqada Ingriiska ma heli weydin chance aad ku tagto school ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqada Ingriiska adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran Okay, favorite subjects ku saabsan maadooyinka qofka xiiseeyo ayaa su'aasha bilaabay what subject do you learn in school what subject maadooyinkeebaad what subject is maadooyinkeebaad did you learn ka barataa in schoolka maadooyinkeed ka bartaa schoolka biya jawaab wuxuu I learned waxaan ka bartaa maths xisaabta science-ka physics-ka biology-ga geography history taariikhda literature suugaanta Englishka and art iyo farshaxanka ama sawirka I learned maths waxaan bartaa xisaabta science-ka physics-ka biology-ga geography-ga history taariikhda literature suugaanta literature waa suugaanta English waa luqada Ingriiska and art iyo farshaxanimada marka maadooyinkii buu tiriyay su'aal kale weydiiyay wuxuu ku yiri what subject did you like the most when you were at school what subject maadadeebaad did you like jeceshahay the most inta ugu fara badan when you were marka aad tahay at schoolka marka aad joogto maadadeebaad ugu jeceshahay b ayaa jawaab wuxuu I like biology waxaan jecelahay biology-ga the most inta ugu fara badan although inkastoo I was excellent aan ku fiicnaa at literature suugaanta inkastoo aan ku fiicnaa waxaan jecelahay biology-ga I liked biology the most although I was excellent at literature did your friend like the subject too did your friends asxaabtaadu like jecel yihiin that maadadaas miyay jecel yihiin biology-ga too sidoo kale miyay jecel yihiin yes have really they did way jecel yihiin they enjoyed way ku raaxaystaan ama way ka helaan every single biology lesson cashar kaste oo biology ama mid kaste oo cashara oo biology way ku raaxaystaan who taught that subject yaa ku dhiga maadadaas my teacher was Jamal wuxuu ahaa macalinkayga Jamal who taught that subject yaa ku dhiga maadadaas my teacher was Jamal wuxuu ahaa macalinkayga Jamal how was that subject helpful to you how was that subject sidee bay maadadaasi helpful caawin ugu leedahay that to you adiga maadadaasi sidee wax kugu tartaa ama sidee ku caawisaa it helped me waxa iga saaciday a lot in fara badan in becoming noqoshada biology teacher macalin biology waxa iga saaciday maadadan insaan u noqdo macalin biology it helped me a lot in becoming a biology teacher till next time assalamu alaikum this is the end of all lesson today arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo